waxa aan maanta ku suganahay isla markaasina aan joogno guud ahaan caalamka meesha ugu weyn ee badda hoosteeda ah ee lagu beero kalluunka oo ku taala magaalada Istanbul. goobtan ayaa ah mid ka diiwaan gashan diiwaanka goobaha lagu dalxiiska badan yahay caalamka marka loo eego goobaha lagu beero kalluunka ee caalamka waxaana la furay sanadkii 2011 iyadoo markaas noqotay goobta ugu weyn ee caalamka lagu beero kalluunka waxaana ay ku taala magaalada Istanbul. markaad gudaha u gasho goobtan ayaa waxaad u malaynaysaa sidii oo aad badda hoosteeda joogto maadaama dhinac walba uu ka xigo noocyada kala duwan ee kalluunka goobtan lagu beeray. waxaa ku jira goobtan in ka badan 15,000 oo kalluun ah kana mid ah 6,000 oo ka mid ah noocyada kalluunka ku jira badda hoosteeda. haddii aad dalxiiso tahay uma baahnid cid kuu sharaxda goobaha ay ka kooban tahay goobtan kalluunka lagu beero kaliya waxaad raacaysaa calaamadaha goobta ku diyaarsan. goobtan ayaa sidoo kale waxaa jooga oo diyaar ku ah boqolaal shaqaale kala duwan ah kuwaas oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir la soconaya caafimaadka noocyada kala duwan ee kalluunka goobtan jooga. waxaad arkaysaa kumanaan ka mid ah noocyada kala duwan ee kalluunka badda ku nool oo iyagana halkan lagu beero. goobtan ayaa marka aad joogto waxaa la yaab kula noqonaya qaabka loo qaabeeyey. la soco muuqaalka soo socda kuna xidhnow Ayub Show.